What's good people? Welcome to another video. Kusoo dhawaad dadkayga video cusub. Waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo chesska ama xabadka sida loo dhiso. Kaliya kama hadlayo sidoo kale waxaan rabaa inaan idin tuso exercise-yada aad chesskaaga ama xabadka aad ku dhisayso. Let's go. waayahay dadkaygu waxaan rabaa daba exercise ugu horeeyna inaan tuso exercise ugu horeeya waxa weeye kursigan baan ku sameeynaa sida hadda uu yahay uma sameeynayno hoos baan u dhigaynaa toos waynu ahaadaa kursigu niyadaadu waxaad ku haysaa exercise markaynu sameeynayno waxaynu target xooga aynu saarayna ama target garaynaynaa chestka qaybta hoose way dhamaantii wada ogtihiin chestka markay noqoto waa qaybta hoose qaybta dhexe iyo qaybta sare marka exercise markay noqoto waxaynu xooga saarayna waxa weeye chestka qaybta hoose sidoo kale waxaynu sameynaynaa dumbbellska bari ma sameynayno dumbbells baynu sameynaynaa miisaan fudud baa halkan yaala waxaan kaliya taan haystaa waa 9 kiilo marka hore waan sameynayaa kadib aan idin sharaxayaa kow laba saddex afar shan lix exercise markay noqoto waxaan rabaa dhammaantiin inaad horta aad iyo aad uga fikirtaan markaad miisaankaad soo qaadataan hore waan idin yiri muhiimaddu ma inaad miisaan culus qaado muhiimaddu waxa weeye inaad miisaanad awoodaad qaado si aad si sax ah ugu samayso kadibna aad u qaadi karto miisaan culus marka sidaan sameynaya hadda waxa weeye oo mar kasta aan sameeyo markaan jimicsiga sameynayo ama rabo chestkayga inaan dhiso waan qaadayaa kow laba waan jiifsanayaa markaan jiifsanayo chestkayga ayaan soo saaraya waa kow garbahana waan isgelinayaa gacmahaygu halka ma taagna gudahana kuma jiraan gacmahaygu waa dhexdhexaad kor baan u qaadayaa toos baan ka dhigayaa gacanta hoos markaan u soo celinayo halka ma tagayo halka aad tagto garbahaaga dhaawac u keenaysa barta inaad ka celiso toos kor aad u qaado gacmahaaguna inay toos ay noqdaan waana 90 degree aanay noqon boqolkiiba waxaa muhiima in aad sida haddaan deeri step-ka inaad ka fikirtaan kow markaad miisaanka halkan aad saarato ee aad jiifsato marka saad u jiifsato inaad laabtaada soo saarto garbahaagana aad iskiliso gacmahaaga sanadi yani xagga dambe aan yaadin dhexnadana aanay noqon gudahana aanay ku wada jirin inay dhexdhexaad ama 90 degree ilaa 85 degree ay ahaadaan kadibna kor aad u qaado kor markaad u qaadaysana inaanay sida aanay noqon gacantaadu inay toos ahaato si aad u target garayso wad mataqaanaa ay u dhisto chestka qaybta hoose su'aasha ku xigtana waxa weeye sidoo kale imisa jeer ayaad ka sameynaysaa exercise-kan ama imisa xabo waxaad ka sameyn kartaa waxa weeye min 3 jeer oo min 15 ah min 3 jeer oo min 15 ah 15 markaan ku leeyahayna waxa boqolkiiba muhiima in aad awoodood si saxaad u samayso waayahay dadkayga dabaad waxaan ugu dagalaynaa exercise-kii labaad sidoo kalena waan hadda deeri qaybtii hore ama exercise-ka hore soo sameynay wuxuu qaabilsanaa waa chestka qaybta hoose hadda waxaynu ma taqaanayay xooga saari doonaa exercise-kan wuxuu noqon doonaa chestka qaybta sare sanadeeri chestka wuxuu qaybsamaa waa saddex waa qaybta sare qaybta dhexe iyo qaybta hoose marka exercise-kan waxaynu xooga saari doonaa waa chestka qaybta sare kursigu soo yahay ma ahanayo kor baynu soo qaadaynaa saadan ka dhigo waxay noqonaysaa way ku fara badanaysaa oo waxaynu taabanaynaa garbaha qaybta hore ma rabno inaynu mataqaanay garbaha qaybta hore xooga aynu saarno waxaynu rabnaa kaliya inaynu xooga saarno chestka qaybta sare oo noqonaysa qaybta gacmaha inaanay ka caawin garbahu inaanay caawin meel kale inaanay caawin chest kaliya inay chestka qaybta sare ay shaqayso marka kursiga hoos baynu u dhigaynaa halkaas good kadibna waxaan sameynaya wax weeye dib baan yara saarayaa si aan ugu beego chestka qaybta sare
birtan kor yara qaadayaa. Good. waayahay waan qaadaya kiskaliyaatan waan tijaabinayaa. Okay, good. birtu markay saata imika waad arki doontaan birteedani waxay ku beegmaysaa keliyata halkaas sare ma noqonayso birta ma qabanayso. waxay birtu qabanaysaa qaybtaas sare, halkaa dhexana maaha, qaybtaas sare keliyata ayaan taabsiinayaa birta. marka saarto kursiga usoo fadhiisato ee dib aad u jiifsato, isku day dhabarkaaga iyo kursigu inay isku dhejisanaadaan. haddii aad dhabarkaaga sidaa ka dhigto waad laabta soo saarto, garbaha dhaawac kaa soo gaaraya. marka boqolkiiba boqol waxaa muhiima markaad kursigaad ku fadhiisato, kursiga iyo dhabarka inaad isku dhejiso. inaad isugu dhejiso. tallaabada xigtaa waxa weeye sidoo kale inaad laabtaada soo saarto. markaa waad arkaysaan toos baan ahay. marka saad u jiifsato, laabtaada soo saar, calooshaada dib u celi, dhabarkaagu ha ku dhejisanaada kursiga weli. birta waxaan qabsanayaa, halkaan ma qabsanayo birta, halkaana ma qabsanayo, halkaana ma qabsanayo. waxaan qabsanayaa birta dhexdhexaad. liid baa jira, liidkaas xaggaan ha ka qabanin, xaggaan ha ka qabanin, bartanka inaad timaado. inaad kor aan u qaado. kadibna qaladka ugu badan aan ku arka waxa weeye in ay gacmuhu saan noqdaan, marnaba yaanay saan noqonin. laabtaada markaad soo saarto, gacmahaagu inay gudaha wax yar ay galaan, yarsaa inay gudaha ay wax yar u galaan, kadibna aad hoos soo dhigto. waad arkaysaan 1 2 3 4 5. waad arkaysaan birta markaan hoos soo dejinayo ayar baa soo dejinaya, saa ma samaynayo. niyadaada waxaad ku haysaa boqolkiiba boqol waxaa muhiima inaad si wanaagsan aad u qaado, waad birta control aad ku hayso. kor inaad u qaado, ayar soo celiso. kor inaad u qaado. birtan markay noqoto, gacmahayga ma rabo inay toos ay noqdaan. birtan waxaan rabaa inay gacmahaygu ay ahaadaan 95 degree, inaanay toos aanay wada noqon. waayo haddii ay toos wada noqdaan, garabkaaga ayaa soo baxaya. waan idin tusayaa. halkan markaan qabsado, laabtayda waan soo saaray, birti waan qaaday, gacmahay gudahay wax yar ku jiraan, waan qaadayaa. 1 saa maaha gacmahaygu 90 degree, 95 degree bay yihiin. halkaasaan geynayaa, waan soo celinayaa, kor baan u qaadayaa, waan soo celinayaa, kor baan u qaadayaa, waan soo celinayaa. exercise-kana sidoo kale waxaa muhiima, horta birtan uu ku jiro way ku caawinaysaa. marka uma baahnid inaad miisaan culus aad qaado. sidoo kale waxaad qaadi kartaa kan miisaanad awoodo. laakiin sidaan nidhi inaad saddexdaa step aan idiin sheegay aad ka fikirtaan. 1 inaad dib aad u fadhiisato, dhabarkaagana aad ku dhijiso kursiga. waa tallaabada koowaad. tallaabada labaadna waxa weeye laabtaada inaad soo saarto. saanaan inaanay laabtaadu ahaan, laabtaada soo saarto, birtaad qabsato halkii haddaan idiin sheegayey, kor aad u qaaddo, kadibna hoos aad u dhigto. waad arkaysaan birta control baan ku hayaa, ayar baan soo dejinayaa, kor baan u qaadayaa, ayar baan soo dejinayaa. exercise-kana saan nidhi dhammaantiin waxaynu xoogga saaraynaa waa jaska qaybta sare. haddii aad dareento inaad garbahaad ka caawinayso, miisaanka hoos u dhig, way culus tahay. saddexdaa step haddaan idin tusay inaad raacdaan. mar kasta waad isku dayda inaad qaaddo miisaanad awooddo si aad muruqa aad rabto ee jaska qaybtaa sare uu u soo baxo. waayahay dadkaygu hadda waxaynu gudagelaynaa exercise-ka saddexaad. exercise-ka saddexaad san buu eegyahay. intiina garanaysaa waad garanaysaan exercise-kan.
boqolkiiba 99 jimka ugu badan uu yaalaa exercise-kan wuxuu qaabilsan yahay oo aan rabo inaan idiin sheego waa chest-ka qaybta dhexe niyadda waxaad ku haysaa chest-ku ballaaran yahay muruqa chest-ku aad buu weyn yahay marka boqolkiiba boqol waxa muhiim ah in dhammaan exercise-yada dhan aad siiso qayb kasta marka imika qaybtan xoog saarayna waa qaybtaas laakiin sidoo kale muruqa sare ee mataqaana ayay chest-ka iyo muruqa sare dhexe iyo muruqa hoose intaba uu taabanaya waana itusiyaa saad u samaynaysaana horta waad fadhiisanaysaa markaad fadhiisanayso waa sidii kii hore oo kale kursiga marnaba sidaa ha noqonin kursiga waxaad isku dayaysaa inaad markaad fadhiisato inaad dhabarkaaga aad ku dhajiso dhabarkayga iyo kursigu way isku dhajisan yihiin inaad markaad fadhiisato aad dhabarkaaga isku dhajiso kadibna garbahayga si wanaagsan u eega jaskayga si wanaagsan u eega marka saasoo kale aanu fadhiyo waxa ugu horeeyaan sameynay waxay noqonaysaa inaan laabtayda soo saaro garbaha ma soo saarayo laabtaydaan soo saaraya kadib ta ku xigtaan sameynay waxa weeye garbahayga ayaan isku dhajinayaa waayo ma rabo inay garbuhu caawiyaan ma rabo inaan gacmaha ka caawiyo jas keliyaatan waxaan rabaa inaan taarget gareeyo xooggan saaro jaska qaybta sare qaybta dhexe iyo qaybta hoose iyo sidoo kale qaybta dhexe markaan soo qaadayo hal mar baan tusayaa si aad u fahantaan kow waan soo qaadayaa dib baan u celinayaa laba saddex afar shan sad hadda aad arkaysaan laabtaydu way soo baxsan tahay marnaba laabtaydu saa ma noqonayso saa intaan u fadhiisto marnaba intaan soo qaado saa ma samaynayo no waxaan xoogga saaraya waxa weeye jas keliyaata jaskayga inaan ka shaqaysiiyo xabadkii keliyaata inaan dareemo meel kale jidhkaanaan dareemin marka waan ku celinayaa dib markaad u fadhiisato dhabarkaagaad ku dhejisa kursiga laabtaada soo saar garbahaagana dib u dhig sayaan noqon garbahaagu dib u dhig kadib soo qaad miisaanku waa muhiim inaad miisaanad awooddaad qaado kadibna waad soo qaadaysaa gacanta koobaad iyo talabaad labadaba waad soo wada qaadi kartaa hal mar inaad saas soo tiraahdo laakiin waxa kuu fudud inaad laabtaada si aad u qaadaysan u luus karayn ama si aad tekniigu sax kuugu ahaado inaad laabtaada soo saarto gacan kaliya aad ku bilowdo kow halka inaad ku hayso hal sakin inta tan kale aad soo qaadayso tan aad soo qaado jaskayga luquntaydu saamahanayso xaggana ma geenayo dhexdhexaad baan ka dhigayaa hoos baan u dhigayaa waan celinayaa kadib baan qaadayaa waan celinayaa gacmahaagu marnaba sayaanay noqonin sayaanayso saas yaani gudaha saa u gelin saa marnaba yaani gacmahaagu saa noqonin markasta inay gacmahaagu toos ahaadaan halkaas iyo halkaas inay markasta toos ay ahaadaan horta way soo saaran tahay garbahaygu dib bay u ceshan yihiin kadibna waan qaadayaa waad arkaysaan hadda gacantaydu toos bay tahay garabkaygu dib buu u baxsan yahay gacantaydu waa sidaa ma aha tabnigaasay tahay aayar markaad hoos aad u celinayso laba saddex control miisaanka ku hay afar shan lix boqolkiiba boqol waxaa muhiim ah muruqan markay noqoto ama exercise-kan markay noqoto aad samaynayso waxaa aad iyo aad u fudud markuu culus yahay miisaanku inaad san samayso way fududahay qof kastana way ku dhacdaa marka ka taxadir inaad san marnaba aanad noqon marnaba inaanad noqon hadda sidaan idin tusiyey inaad dib aad u fadhiisato dhabarkaagaad ku dhijiso kursiga laabtaada soo saarto gacmahaagu saanay ahaan way toosay ahaadaan oo aad gudahaad geliso aayar aad celiso
gudaha aad geliso halka wax yaraad ku hayso aayaraad celiso exercise-kana waxaad samayn kartaa min 4 jeer oo min 10 ah markaan idin leeyahay min 4 jeer oo 10 ah inaanu miisaanku noqon miisaan culus ee waa inaad hal mar markaad samaynayso waa inaad 10 xabba oo saxa aad ka samayn kartaa muruqana waa inaad dareentaa sanadi qaybta sare qaybta dhexe qaybta hoose iyo sidoo kale qaybtaas dhexe ee mataqaanaya chestka soo chestku u weynaado oo u soo baxo waayahay dadkaygo waad arkayseen dhammaan exercise-sidaan ay tusay waa exercise keenay inuu jidhkaagu isbedelo exercise-ka ugu horeeya waad arkayseen xoog waxaynu saaraynay chestka qaybta hoose exercise-kii labaadna chestka qaybta sare exercise-kii saddexaadna qaybta sare qaybta dhexe iyo qaybta hoose iyo sidoo kale qaybta gudaha ku jirtaba si uu chestkaagu isu bedelo dhammaantiin ragga dumarba waxaan rajaynayaa inaad wax ka qaadateen kana faa'iidaystaan horena waan idinku yidhi dadkaygo xoogga waxaad saartaan sidaad u qaadaysa waayo tekniigu waa muhiim haddii uu tekniigu uu saxan yahay niyaddaada waxaad ku haysaa muruqu isbedelaya laakiin haddii aanu tekniig aanu saxnayn way adkaanayso inuu muruqu isbedelo marka inaydan wax culus qaadin ee aad xoogga saartaan tekniiga sidii haddaan idiin sharaxayay dhammaan exercise-yada haddaan idin tusayba dadkaygo axad kasta waad ogtihiin video cusub ayaan soo geliyaa dhammaantiinba ragga dumarba haddii aad youtube-ka ku cusub tahay subscribe saar si aanay ku dhaaf videoga dambe aan soo wada waayo markaan videoga aan soo geliyo hadda subscribe saarto waxa ku soo dhacay notification waxa ku soo dhacay message inaan video cusub aan soo geliyay dhammaantiin waad ogtihiin video cusub aan soo geliyaa axad kasta 5 galabnimo aniga markay tahay waqtiga Sweden dadkaygo waa inuu hadda soo socotaa peace out